xafladan lagu xusayay 15 Sebtembar oo ah maalin loo asteeyay boqortooyadii Ajuuraan iyo calankii ay isticmaali jirtay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada midaynta beesha Ajuuraan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka aqoon-yahanka siyaasiyiinta culimada iyo haweenka beeshaasi. qaar ka mid ah dadkii xafladda ka hadlay ayaa ka sheekeeyay taariikhdii ay lahayd boqortooyadii Ajuuraan waxaana ay sheegeen in boqortooyada Ajuuraan ay bilowday xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Shiinaha sidoo kalena is hor istaag ay ku sameysay damicii Boortaqiisku uu rabay inuu ku qabsado Soomaaliya 15 September waxa asteeyay inay noqoto maalin u gaar ah dhalinyarada boqortooyada ama guud ahaan boqortooyada beesha Ajuuraan inay noqoto maalin gaar noo ah oo aan xusno taariikhdii iyo calankii boqortooyada beesha si aan jiilka dambe ama naga dambeeya ama kuwa naga dhaxli doona Ajuuraannimada ama boqortooyanimada inay ogaadaan taariikhdooda. waxaan mar labaad ku faraxsanahay dhalinyarada quruxda badan oo rag iyo dumar ah oo xilligan u soo jeedo qadiyadda waa shay qaali ah waxa kaliya oo la ilaaliyo waa qadiyadaas waxaan nahay qabiil la jecel yahay oo qabaa'ilada Soomaaliyeed dhan ay jeceshahay xafiiska gashid qofka uu tagtid daadata Ajuuraan fadhigu ka kacaya aad ayaan inkiiga mahad celinayaa sharaf weyn ayay ii tahay inaad halkan igu soo casuntaan wajiyada quruxda badan leh mustaqbalkii maanta iyo bariba adinka ah marka hore u wada hawsha guul iyo gobonimo ayaan idin rajaynayaa. waxaan ka xoreynay gumaystaha Boortaqiiska oo dad ku gadan jiray Kenya iyo Tanzania iyo meesha la yiraahdo Zanzibar dad ka aruursan jiray oo Mareykan iyo Carabaha ka gadi jiray ayaan weerar ku qaadnay haddaan nahay boqortooyadii Ajuuraan ee Soomaaliyeed waa ka xoreynay waa ka dulqaadnay ilaa South Africa ayaan u hiilinay. waxaan u taagannahay inaan insha Allah taala waqtigeena juhdigeena iyo wax walbo awoodeena iyo maskaxdeena aan isku geeyno inaan walaalaheena dib isku mideyno ka shaqeyno midnimadeena ka shaqeyno wada jirkeena ka shaqeyno horumarkeena insha Allah taala waxaan rajeeyo doonaa in Soomaaliya ay ka talin doonto boqortooyada Ajuuraan. dagaalkaas boqortooyada Ajuuraan ay wada galeen muxuu ahaa boqortooyada Portugal oo xagga badda ah wuxuu socday 10 sano oo xiriira 10 sano gaadiid iyo wixii dooyo ay boqortooyada lahayd aad u baaba'een garab waxaan noo noqday oo aan hadda idinka magaciina aan ku hadlayaa Ajuuraan weyn aan u mahadnaqayaa boqortooyada Cusmaaniyiinta nimankii ahaa Osman Empire oo hadda ay ka joogaan reer Turki way mahadsan yihiin reer Turki. waa la xaqiray reerkan shalay dawlad buu ahaa reerkan boqortooyo ahayn dawlad bay ahaayeen markii dawladoodii burburtayna qowmiyad waxay ahaayeen shacab ah oo ummad nabadeed ah qowmiyad aan colaad lahayn oo aan problem badan lahayn oo qowmiyad nabadeed ah ayuu Ajuuraan iska noqday. Sadi Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho.